السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل wanaagsan daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee warqaha TV oo Soomaaliya idiga waxaa kamid ah dowladda Kenya oo ku dhawaaqday in gabi ahaanba la baajiyay shirkii saddex geesoodka ahaa ee madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddankaas Itoobiya Abiy Ahmed. xogta ka dambeysay inuu baaqdo kulankaas iyo diidmadii madaxweyne Farmaajo ee heshiiska badda oo kalifay in heshiiskan uu baaqdo. cudurka coronavirus oo soo gaaray geeska Afrika, Kenya iyo Itoobiya ayaa laga helay. haddaba maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed? Somaliland oo mamnuucday safarada diyaaradaha uga yimaada waddanka Itoobiya. boqortooyada Sacuudiga oo Soomaaliya ku dartay dalal uu guud ahaanba dalkiisa ka mamnuucay. qodobada kale aan diihayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo wafdi heer sare u diray Puntland si ay uga qayb galaan shirka ayaha maamulka ee Garowe ka furmaya. iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo furaysa wadooyinka magaalada Muqdisho xilli meeshii ugu xumeed ay wadooyinka xiran gaarsiiyeen ganacsiga ee caasimadda. waa 14 bisha saddexaad ee Maaj maalinimo Sabtiya sanadka 2020. intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee wararka warqaha TV maanta uu idii hayo. hadday daawada ku tahay markii kugu horeysay, fadlan subscribe oo furaga baleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinada warqaha TV oo halkaan idigu soo gudbiyo. ayna ku bilaabanay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayay ahayd inuu ka furmo shir saddex geesood ah oo u dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta. shirkan ayaa la soo sheegayaa in gabi ahaanba uu baaqday, waxaana qorshuhu ahaa in shirkan uu qabsoomo 16 bishan magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayayna ku kulmi lahaayeen dhinacyada. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Kenya ayaa ku dhawaaqday baaqashada shirkan, laakiin ma aysan soo bandhigin sababta dhabta ee ka dambeysa arrintan. qoraal ay u dirtay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayay cudurdaar kaga muujisay dib u dhaca oo ay ku qeexday mid laga foqsan waayay oo laga maarmaan ahaa. warqadda oo nuqul ka mid ay heshay warbaahinta warqaha TV ayaana lagu soo bandhigin taariikhda xigta ee uu qabsoomi karo wadahadalka baaqday. madaxweynayaasha ayaa ka arrinsan lahaa qodobo muhiim ah oo xal looga raadinayo khilaafka Muqdisho iyo Nairobi iyo xasiloonida soodinta. bayaanka waxaa ka soo dhex muuqday ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo la sheegay inuu qayb ka ahaa wadahadalka walow aanan horey loo sii shaacin. Abiy Ahmed ayaa la faahsan yahay inuu ka shaqeeyay in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu telefoonka kula hadlo Uhuru Kenyatta kadib cadaadis uga yimid dhinaca waddanka Mareykanka. inkastoo aysan noqon lahayn markii koobaad, tani ayaana macnaheedu tahay in shirku uu noqon lahaa mid saddex geesooda. dhinaca kale, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaanan weli war rasmi ah ka soo saareen wadaxaajoodida xasanada leh ee xukuumadda Nairobi ay qabaqaabisay. cilaaqaadka Muqdisho iyo Nairobi ayaana wanaagsaneyn bilooyinkii la soo dhaafay, waxaana mar walba soo ifbaxayay khilaafyo xoogan oo dalalkan u dhaxeeya. haddaba shabakada wararka ee warqaha TV ayaa heshay xog iyo warbixin ku aadan sababaha ugu weyn ee kulankan u baaqday. wararka la helay ayaa sheegaya in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka uu gabi ahaanba ka biyadiiday codsi hordhac ahaa iyo wadahadallo si hoose ee dhinacyadan u dhexmaray, kaasoo ku aadanaa in wadahadallada ay noqdaan mid heshiiska madambaysa lagu gaaro. wararka aynu ka helnay Villa Soomaaliya ayaa tilmaamaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Kenya ay ku wargelisay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo maalin ka hor booqasho ku jooga magaalada Nairobi inay qasab tahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Kenya ay ka heshiiyaan muranka badda, sidoo kalena dowladda waddankaasi Itoobiya ay marqaati ka noqoto. laakiin Villa Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa gabi ahaanba ku gacan saaray arrintan, waxaana uu shaaca ka qaaday in aysan raalli ka ahayn in badda Soomaaliya ay hoos geeyaan waddankaasi Kenya. xogtan oo aynu ka helnay ila waraadiyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa intaa ku daraysa in taas ay sababtay in dowladda Kenya ay boodo oo ay gabi ahaanba baajiso kulankan. inkastoo saxaafadda Kenya ay warinayso in sababaha kale ee uu kulankan u baaqday ay tahay kadib markii cudurka coronavirus laga helay waddankaas, haddana ila waraadyadan diblomaasiyadeed ee laga helayo Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamayaan in Kenya ay ku guuldareysatay damacii ay ka lahayd madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa arrinta badda, taasna ay markaasi ugu cuntami weysay in shirka uu noqdo mid la isku arko haddana natiijo la'aan ku soo dhamaada. ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa dhinaciisa isku dayay in madaxweyne Farmaajo uu ka dhaadhiciyo xataa in dib loo dhigo kiiska maxkamadda qaramada midoobe ee lagu xukminayo arrinta badda,
laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa gabi ahaanba ku gacan seeray. Lama oga in haddii wadahadallada ay sii socon doonaan, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ee maanta ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintan war ka soo saaraan. Dowladda Kenya ayaa muran xoogan ka abuurtay xuduudda Soomaaliya iyadoo leh dano la xiriira arrimaha badda. Xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaana sheegay in xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyo dagaalkii ka dhacay xuduudda uu xiriir la leeyahay muranka dhinaca badda ee labada dowladood. Isagoo la hadlayay BBC-da ayuu ku eedeeyay Kenya inay si cad uga soo xadgudubtay Soomaaliya, isla markaana ay hubaynayso koox jabhada oo la jeedo ciidamada uu hogaamiyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Xildhibaanka Daahir Amiin Jesow ayaa sheegay in xalku uu ku jiro Kenya inay muraayada isku eegto oo aysan isku arag inay ka muruq weyn tahay Soomaaliya. Dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay ka hortageen afgambi uga imeelaha filla Soomaaliya. Taliyaha ciidamada Jubbaland ee degmada Afmadow ayaa shaaca ka qaaday inuu iska diiday $1 milyan oo dollarka Mareykanka, taas ay u ballan qaaday Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa horey shaaca uga qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya u soo bandhigtay $20 milyan oo dollar, isla mar ahaantan uu dalabka ka diiday madaxweyne Farmaajo. Mahad Islaam oo fariin muuqaal iyo qoraal soo saaray ayaa tilmaamay in si toos ah ula soo xiriiray Fahad Yaasiin Daahir, taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya, madaxweynaha jamhuuriyadda dalka iyo xubno kale oo ku dhow labada mas'uul. walow uusan soo bandhigin cadeymo cad oo xoojinaya sheegashadiisa, madaxtooyada qaranka ayaana weli wax jawaaba ka bixin, iyadoo sidoo kalena hay'adda sirdoonka Soomaaliya ugu sareeyo Fahad Yaasiin inaysan ka hadlin. Sargaalkan ayaa xusay in qorshaha ay u soo bandhigeen saraakiisha ay ahayd in uu 11 Maaj 2020 uu fuliyo afgambi, balse arrintaasi uu cuntay muweysay isla markaana uu ogeysiiyay madaxweynaha Jubbaland. waa xagaag daawadayaal, adduunka waxaa ka jira fayraska dilaaga ee coronavirus. fayraskan waxa uu ka dilaacay markii ugu horeysay waddanka Shiinaha, laakiin dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in looga soo gudbiyay dhinaca waddanka Mareykanka. Si walbaba ha ku yimaadee, cudurkan ayaa waxa uu hadda soo gaaray dalalka Geeska Afrika ku yaala, waxaana laga helay dalalka Kenya iyo sidoo kale waddankaasi Ethiopia oo aynu darisnahay. Dowladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in cudurkan coronavirus laga helay qof haweeney ah. Wasiirka caafimaadka ee dalkaas ayaana shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in haweeneydan oo 27 sano jira ay hadda xaaladeedu degan tahay, inkastoo ay ka soo bogsanayso cudurkan, haddana waxa uu shaaca ka qaaday in xaalad halis ah uu dalka ku jiro. Dhinaca kale, waddanka Ethiopia oo aynu darisnahay ayaa isagana laga helay cudurkan markii ugu horeysay. wadamada kale ee gobolka ku yaala cudurkan laga helay waxaa ka mid ah waddanka Suudaan. waxaa sidoo kale laga cabsi qabaa in cudurkan laga helo qaybo kale oo markaasi gobolka ka tirsan. haddaba maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed? Wasaaradda Caafimaadka dalka Soomaaliya ayaa maalmahan waxa ay si weyn u waday olole xoogan oo looga hortagayo cudurkan. garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo garoomada kale ee diyaaraduhu ka degtaan sida garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ayaa la dhigay qalabka lagu baaro xumada ama qandhada dadka soo degaya, taas oo sidoo kalena haddii qofka looga shakiyo lagu karantiilayo. iyadoo haddaba dadaalada ay jiraan, haddana dadka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay ilaaliyaan caafimaadkooda. Ilaahay ha naga hayo cudurkan iyo cudurro kale oo adduunka ka jiro. haddana dadka Soomaaliyeed waxaa qasaba inay raacaan tilmaamaha hay'adaha caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga shaqeynaya arrintan, welibana si gaar ah saxaafaddu ula wadaagayay waxyaabaha ama barnaamijyada ay tahay in dadku ay sameeyaan si cudurkan haddii xataa qof uu ku dhaco in uusan sii saameynin. maxaa yeelay cudurkan waxyaabaha lagu kala qaado waxaa ka mid ah taabashada iyo sidoo kale neefta. sidaa daraaddeed, daawade, haddii ay suuragal ku tahay ilaali nadaafadda oo waxaad aad ugu taxadirtaa inaad gacmahaada mar walba aad dhaqdo. maxaa yeelay dalka waxaa maalin walba ka soo dega dad fara badan oo ka yimid dalalka Yurub oo si weyn cudurkan u saameeyay, iyo sidoo kale wadamada qaaradda Asia iyo sidoo kale wadamadan bariga dhexe oo cudurkan si weyn uga jiray. Somaliland ayaa dhinaceeda waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay joojisay socdaalkii ay uga imaanayay dhinaca waddankaasi Ethiopia. Somaliland ayaa go'aankan soo saartay kadib markii cudurka coronavirus markii ugu horeeyay laga helay waddankaasi Ethiopia. wakiil ku-xigeenka Somaliland ee Ethiopia
ayaa shaaciyay inay safaarad ahaan joojiyeen fiisihii ay ku siin jireen dadka ka imaanaya dalka Ethiopia oo la sheegay in laga helay kiiskii ugu horeeyay ee fayraska corona. wakiilka ayaa xuseen Somaliland ay ka feejignaad doonto cudurka ayna markaa talabadan u qaadeen si ay uga hortagaan in gudaha Somaliland uu galo fayraska xawliga adduunka uga faafaya. dhinaca kalena boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay ku dartay dalalka ay ka mamnuucday in dalkeeda ay soo galaan. gabi ahaanba dalalka Yurub ayaa diyaarado iyo sidoo kale safarada aan uga imaan doonin boqortooyada Sacuudiga. sidoo kale bayaanka cusub ee Sacuudiga ka soo baxay waxa shaaca looga qaaday in dalalka Switzerland, India, Pakistan, Sri Lanka, Philippines, Sudan, Ethiopia, wadanka koonfurta Sudan, Eritrea, Kenya, Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliya gabi ahaanba aysan booqan karin diyaarado ka soo duulay wadankaasi Saudi Arabia. gobol dhan ayaa la karantiilaya oo la xiray oo markaa bandow lagu soo rogay kadib markii laga helay dadkii ugu horeeyay ee qaba viruskan coronavirus la yiraahdo. Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti inkastoo aan cudurkan laga helin haddana boqortooyada Sacuudiga waxay sheegtay in dalalkaas muwaadiniintooda aysan soo geli kareenin wadankaasi boqortooyada Saudi Arabia. horey ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dalalka cudurkan uu ka dilaacay uga mamnuucday dalka, laakiin dhawaantan shirkadda Ethiopia Airlines ayaa waxay magaalada Muqdisho ka soo dejisay qof laga keenay wadanka Shiinaha kaasoo hadda lagu karantiilayo magaalada Muqdisho. Allah naga badbaadiyo ayaan leenahay dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba guud ahaanba inta kale ee muslimiinta ah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wafdi heer sare u diray Puntland si ay uga qayb galaan shirka ayaha maamulkaas oo ka furmaya magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi Puntland. wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ayaa ka mid ah xubnaha shirka ka qayb galaya, waxaana hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. wafdigan ayaa waxa ay ka qayb galayaan shirka ka furmaya magaalada Garowe 15 bishan kaas oo uu ku baaqay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani kadib markuu aad uga carooday ficilada madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya. wafdigan ayaa ka jawaabay baaqii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ee ahaa in dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada ay ka qayb galaan shirka. hase haatee waxaa la aaminsan yahay in tigitaanka wafdigan ee magaalada Garowe ay dowladda federaalka Soomaaliya wax ka og tahay. wararka ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay wada hadal kula yeeshaan halka madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani isla mar ahaantaana ay kala hadlaan sidii xiisada labada dhinac u dhaxeeya waa dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka loo xaliyo. ugu dambeyntiina wadooyinka ayaa la furayaa magaalada Muqdisho xilli magaalada caasimadda ganacsigeedu aad hoos ugu dhacay. maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in talaabadan loo sameynayo sidii dadka socodkooda loo soo celi lahaa. qaybo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah dhagaxaan ayaa tuban ayadoo dowladdu ay sheegtay inay ammaanka ku sugayso, haddana ganacsigii ayaa hoos u dhacay waana tan keentay in maamulka gobolka Banaadir ay qaadaan talaabadan. waxay noqonaysaa fariin farxad gelisa dadka Soomaaliyeed haddii dowladdu ay qaado talaabadan. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka wararka iyo warbixinada ee warqaha TV idiga haya Soomaaliya. barnaamijka lamid ah insha Allah intaan ku kulmi doono waxaan idiga tagayaa sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.